qofka muslimka qaangaarka ah caafimaad Ilaahay ku manadeystay waa waajib saaran in bisha Ramadaan soomo. Soonka wuxuu ka mid yahay shanta tiir Islaamka, waana bisha nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Qur'aanka lagu soo dejiyay. Waxaan muuqaalkeeni maanta ku soo koobaynaa 5 talo ku aadan dadka macaanka mise sonkorowga qaba xilliga soonka. Si joogto ah u hubi sonkorta dhiigga. Isbeddelka ku imanaya jadwalka cunnada waxay saameyn ku yeelan kartaa sonkorta dhiigga. Sidaa awgeed waxaa wanaagsan in si dhow loola socdo. Soonka kama burinayso in sonkorta dhiiggaaga la socoto, waana daaqada aad ku maarayn lahayd mise aad ku ogaan lahayd cabirka sonkorta dhiiggaaga. Dadka khatarta ugu jira inay sonkorta dhiiggooda sare kacdo waxaa la gudboon in ay 3 ilaa 4 mar maalintii hubiyaan, halka dadka khatartooda ay ka yar tahay la rabo inay maalintii hubiyaan 1 ilaa 2 mar. Dawooyinka in sixitaan lagu sameeyo. Waxaa wanaagsan inaad dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow kala hadasho sida ugu fiican dawooyinka loo qaadan karo xilliga soonka. Jooji soonka. Dadka macaanka qaba waxaa fiican inay joojiyaan soonka haddii sonkorta dhiigga ay noqoto in ka yar 70 mg/dl oo u dhiganta 3.9 mmol/litir. Haddii sonkorta dhiigga ay noqoto in ka badan 300 mg/dl oo u dhiganta 16.6 mmol/litir. Haddii qofka ay ka soo muuqdaan calaamadaha markay sonkorta yaraato mise badato. Joogtee jimicsiga. Jimicsigu wuxuu ka mid yahay furayaasha ugu horeeya ee sare loogu qaadi karo caafimaadka jirka iyo maskaxda. In lagu noolaado nolol firfircoon waxay kugu saacidaa inaad hesho isu dheelitirnaan iyo xorriyad ah inaad aadi karto halkaad rabto. Dadka macaanka qaba waxaa wanaagsan inay joogteeyaan jimicsi fudud sida socodka iyo xaadirista salaada tarawixda, waayo wuxuu ka hortag u noqon karaa xanuuno kala duwan sida xanuunada ku dhaca wadnaha. Laakiin waxaan la ogolayn jimicsiga xad-dhaafka ah waxa uu qofka ku keeni karaa inay sonkorta dhiiggooda hoos u dhacdo mise fuuqbax. Qaado cunno kugu filan. Dadka macaanka qaba xilliga soonka waxaa la gudboon inay qaataan cunno isu dheelitiran sida carbohydrateska 45 ilaa 50, proteins 20 ilaa 35, baruurta in ka yar 35, khudaar ku filan, biyo ku filan, fibers ku filan. Fiberska waa qayb ka mid ah carbohydrateska jirkeena awood uma lahan inuu si dhammaystiran u wado